aniga oo maanta jooga magaalada Luqaya la yiraahdo ka hadlaya ama se ku hadlaya afka qabiilka la yiraahdo Ciisa kana hadlaya danta ay u leeyahay Ciisuhu waxa dhacday ilaa 25 sanadood muddo lagu qadarayo degmada ay aan degno ee aan ku naalo in 6 goobood oo aan deganahay la yiri waa maxbuus oo way xidhan tahay sababta ay u xidhan tahayna wali ma garan annagu adduunyadu way ogtahay in ay xidhan tahay 6 goobood oo aan laga footayn karin waxba laga dooran karin siyaasi ka soo bixi karin ilaa hayr tuula ugu yaro uuna ka soo bixi karin taas waxa ugu wacan dawladda ka dhisan Soomaaliland ee cid kale ugu ma wacan sida daraadeed waxa waliba leeyahay foodadka dhacaya footeeya oo meelaha kale ka soo footeeya war iska fadhiya macadad iyo dunyaba waxa leeyihiin cidinama leh waxa la leeyahay dhulkaagii xidhan yahay haddana soo footeeyo doorashooyinka codadka ku rid baa leeyahay waxa weeye haddii aan nahay qabiilka dhulka dega ee Ilaahay dhigay annagu cidna lidii kuma nihin xusbiyada imika jiree tartamayana ku macaaridana ma raacayno ku maxaafidana ma raacayno halka ay dani noogu jirtaan sahaminayna oo degaynaa waxaan ogeysiinaynaa arrinta oo kale meeshuu doonaba ha joogay qabiilka Ciisaha la yiraahdo ilaa garmaru ka jooga waxaan ogeysiinaynaa inay dhibaatadaasi nahayso ka dibadda jooga ee qurbaha jooga waxaan ogeysiinaynaa inay dhibaatadaasi nahayso oo gaar ummadda ka nahay waxaan ogeysiinaynaa ugaas sole maxay Mustafa in ay dhibaatadaasi nahayso iyaan ogeysiinaynaa waxa la yiraahdo Umar Cabdi waxaan joogaa deegaanada Luqaya waxaan ka mid ahay dadka ku abuuran dhulka Ilaahay ku abuuray ee waligii deganaa maanta waxa halka aan uga hadlaynay waxa weeye wax dhacay Soomaalidu waxay tiraahdaa sinaantaada ninka diida sarreyntiisa la diidaa annagu waxaan leenahay reerka Saacid Muuse la yiraahdo horta isaaq waxaan la hadlayaa kolka dawladda isaaq sheeg waa dawladda isaaq meesha wax ka dhisay haba saahato way si kala duwanta reerka Saacid Muuse la yiraahdo dib iyo dheefba waan la wadaagi jirnay waan ku xoolo beelay oo ku goblannay oo ku dagaal galay oo nololaha iyo ku kala dhimanay oo abtiyaasha iyo ku kala dhimanay maanta kii sidaa wuxuu noqday anigu kuma ogoli wax jirana ma tihid abaalmarintii waxay noqotay kabna ma tihid cagna ma tihid waxaan leeyahay waryaada nimanka Saacid Muuse ee Djibouti joogay in Xaaji Saciid ku jiro ee Omar ku jiro Maxamed Saciid ee tijaarta waxa dhibta wada waa iyaga weeyaan halkan waxa ka wada waa iyaga waxa ka macaashay meel Ciise joogana waa iyaga waxa leeyahay sima cadday waa qabiil waa qolo ma aha dawladda Soomaaliland laakiin rag baa ka dambeeya hanaga raraa imaka hanaga guuro qabiilka Saacid Muuse ilaa iyo intii adduunyada soo dhaqrayba wax isdiiday midna ma jirin jacaylihii aan isku haynay waa ka dagaalka wada qaadnay ee iyagana Ciise barnay iyaguna isaaq ayna bareen waxaan leenahay dalka la xulay waxa la doonayaa dadka Itoobiya ku nool ee magaca Saacid Muuse sheeganaya in la keenayo la dejinayo waxa weeye inagoon ismaray ya waxa dhici doonta inagoo ismari waayeen waxa dhici doonta aniga casharkii aan ku dhigi jiray soo celin doona ma garan ya maanta Saacid Muuse waxaan leeyahay haddaad dareegtay abaalkaagaan ku marin abaalkaygu waad biisay oo maanta soo raaciyay Ciisaanu sheegaya Ciise dhulku waa baar iyo bari baarkii Ciise wada daaqay baridiina ana fadhiya baridii aan fadhiyay haddaad ka dheregtay waa soo sheegi ugaaskaanu sheegaya madaxweynahaanu sheegaya Ismaaciil Cumar Geelaanu sheegaya awaayi reerkaasi labada garab in la hayo weeyaan dhanna uma bixi karo goobtu yaalay ka guuraa la leeyahay haddaad guuri weydo adaa yaqaan baa la leeyahay ciidan beeleed baa la dhex furay jabhad baa la dhex furay waxa la ninkii dhaqaajaba jabhad wax ka qabato anu jahaynaya shicib baan haytay nabad baanu hadaanu nabadiinu way cutami weyde waxa weey waxa ku dambaysaa la sugo reerka Ciise la yiraahdo koow wax dib la yiraahdo iyay beesha Ciisuhu iyay sheeganaysaa
وياي كشيغانيسا دولة Somaliland كو محاكم ملا قوبها لح ميلود لح قوبون ودقان كرير كعيسى ويالله يالا يلبوا الله حري قف كبني آدم كاما الله حرا كوكا ودنبابو يالا حرا عشان إلهي ليه ميال ميدن بابتا ميدن بابتا عرب ميدن بابتا ميدن بابتا عرب dadka yaga dul joogaana ma aanan dambaabin waa damac weeye ma ayaanse wax laga heli doono waxaan leeyahay had iyo jeer xukuumadda waan tagnaa dhibaato wixii jirana waanu sheegnaa waxaan doonayana waa sheeganaa been baa naloo sheegaayo waxaaba ka qabanaynaa unbaa leen waxna lagama qabto waxaan leeyahay cadaadinta iyo dagaalka goostoosta ahee nagu socday annagu qabiil ah ciidamada nala dulliga ee na dulyaaya ee cabdigeedii dulyaaya ee na duldhigay madluum baanu ka nahay haddaana naga qaadinaya dhibteeday leedahay soomaalidu waxay tahay wixii umusha u roon unbaa ilmahana u roon horta dawladda Soomaaliya wixii iyada u roon baa shicibkana u roon dadkeegana iyada u baa kala qoraysatay kala qabiilaysatay dadka aanu ma waadi lahayn dalka in waa sheegnay kuwan aan sheegayno iyada ku tiirsanoo xubinta iyo cududaba u sheegtay ilaahay baana xubin iyo awood bale nin kastaabana markuu xubin iyo awood sheegtay ninna ma qayla la yadu taasi waa dawladda Soomaaliland waxa oo dadka yiri qoranimo isku gumaysta qabiil isku gumaysta qabiilka caynkaasina dalka waxba kuma leh dadkana waxba kuma leh nin kasto awood loo waa intii aad ku fadhii karayso ku fadhiiso sidii u baa noogu fadhiyaade waa hore loo tuuyo u baanahay wax nolol oo kale haysanaa ma jirto walaalaha Djibouti jooga iyo kuwa badda cas iyo kuwa bariga aadamiga oo dhan kasto ka doonayno haddana naxdini waa ninkeed baa ee jiilku ku sii yaalo ee dhabaalka ee Djibouti jooga waxaan ka doonaynaa wixii aan ku lahayn ee walaalnimo dalka iyaga un baan haynaa anagu ma lahayno kaliya gaar uma hayn laakiin wadanka wixii sheegayo haddii aan ku hayno wadankii waa naga raray awood baa la noo sheegtay fi ilaahay iyo iniga uma nisweynaa assalaamu calaykum Soomaaliland haddii dagaalkaasi ku dayahay wad haddaad ku gaarayso wad haddaanad ku gaarayn adigaa ka tashan waxa weeye oon gaarsiinayaa magaca ciise waad ogtahay ciisow dibad haddaad joogto waad ogtahay dox haddaad joogtona waad ogtahay Djibouti haddaad joogtona waad ogtahay waa kaa dhashay waa kaa qaylo waaye waa kaa tal waaye waa kaa qaylo waaye waa kaa tal waaye waxa weeye waxaan gaarsiinayaa ugaas Mustafa oo maanta boqorkii ciise ah waan gaarsiinayaa jumhuuriyadda Djibouti yamada waxaga waan gaarsiinayaa barbajoogta waan gaarsiinayaa kama dambayn weeye waxa weeye intaasaan galbaduuna magaca ciise ka dhashay maxaa idlay baday كذا دغلا maxay waxa weeye ciisow gudbadkaagii oo degdega waa ka rabaa Soomaaliland haddii taasi ku roon tahay haliga aad ugu baxdo hadduu ku roon dilka aad ugu dabto hadduu ku roon yahay hadduu ku roon ku dan yahay lama soo wad shalay baa ka imid أقاشي رجال الدم أقاشي رجال وجاسي والله ما يلو موسيقى ما حد يسوق أنتي ما حد يضرب كنتي ما حد يسوق أي ما حد مكراس ويشان إلا دولة كوجوتو هذا إلا كوجوتو دولة كابا سويشان بجد أرجع كذا أذاك waxaan ciise u sheegaynaa ciise wixii dareenaya oo dhan iyaan u sheegaynaa ugaaskaan u sheegaynaa Mustafa iyaan u sheegaynaa waxaan leenahay ciise siduu u dheeyahay halka waxa iska weydiiyay kolkii soo guuro u buuraa dalka aniga leh dee waxa ma dhacaysatay waa dhulkaan haynay weeyaan ilaa anaguna ku dhalanay ma garatay
وعوي وحلها عيسو هدا أسفل ذي فردك ككع أضلك هالدرين يس فردك كسركع هالكا هلا وضع موضوع سيدي ذا هلا أركو وأركيسين والدولة اسمك عوضي أو قبيل كسر يسويه قبيل بيكسر يسوي وحوي والله يقبض عسنا يجونا حل كار هاي سساران دمبالك ها دمبال هاي سساران حل عرس وحوي هنو قادان هنولا السعودان سيدي هاي نولا السعود كريان بها نولا السعودان الإنسان باق أبانو درينا إني قال باق أبان نيسو درينا حالنا هاي أرنكا وحالك قبطو هل أقادو hawshana halkaa baan ka wadaynaa haddaan nahay guddidaa guud haddaan nahay shirka halkaa ka dhacay degmada Luqayaad ka dhacay haddii aan nahay haa laga soo saaray waa lana soo xulay ciyaar maaha waa lana soo xulay oo guddi rag aqoon loo duqeeya baan soo xulay sidaa baan idiin sheegaynaa yaa fadhi haddaad fadhideen fadhiga ka saraka walaalaha yaa ka kacaa fadhi waan idiin sheegaynaa aad baan idinka dhaadhicinaynaa waxaad yeeshiin guddiga dhiisha la iskaga dhigo sidii aan halkaa waxaa nagu haysta wax looga qaban lahaa nin